44 sano ayaa laga joogaa markii wadaad iyo dadkii taabacsanaa ay la wareegeen masaajidka barakaysan ee ku yaala magaalada Maka oo ah halka ugu barakaysan ee dunida sida uu islaamku qabo. Qabsashada masaajidka ayaa ruuxday dunida islaamka isla markaana waxay bedeshay taariikhda Sacuudiga. Subaxnimadii hore 20 November 1979 ilaa 50,000 oo qofood oo dunida daafaheeda ka kala timid ayaa isugu yimid Kacbada si ay ugu tukadaan salaada subax. Dadkaasi waxaa ku jiray 200 oo rag ah oo uu hogaaminayay wadaad 40 sano jir ah oo lagu magacaabo Juhayma al-Utaybi. Markii uu imaamkii dhameeyay tujinta salaada, Juhayman iyo dadkii taabacsanaa ayaa dhinac u riixay, waxayna la wareegeen mikrofoonkii. Waxay bartamaha masaajidka dhigeen naxashyo. Marka salaada ay dhamaato, waxaa caado ah in masaajidka la keeno meydadka si loogu tukado salaada janaasada. Hase yeeshee, markii la furay naxashyadii, waxaa ka soo muuqday qoryaha gacanta. Si degdeg ah ayaana loogu qaybiyey raggii. Mid ka mid ah raggii mikrofoonka la wareegay ayaa meesha ka akhriyay khudbad diyaarsanayd. Wuxuuna hadalkiisa ku yiri sida tan: muslimiinta halka joogtaay, waxaanu ku dhawaaqaynaa imaanshaha Mahdi oo la imaan doona cadaalad iyo sinaan dhulka ka hirgasha kadib markii cadaalad daro ay dhulka harqisay. Xujaydii meesha ku sugnayd waxay tani u ahayd wax la yaab leh. Xadiisyada waxaa lagu wariyey in rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee uu sheegay imaanshaha Mahdi, waxaana lagu sheegay inuu yahay nin awood dheeraad ah. Cod laga soo duubay khudbada waxaa laga maqlay Juhaymana oo ninkii hadlayay ka dhex galaya hadalka, isla markaana raggiisa ku amraya inay xirxiraan albaabada Kacbada, isagoo leh imaqla walaalayaal. Axmed al-Lahbi oo ka mid ahaa dadkii taabacsanaa waxa uu ku yiri: aad sagxada kore, haddii aad aragto qof amarka ka hor imaanayana in la arko rag hubaysan oo ku sugan meel ay diintu ka mamnuucday inay rabshado ka dhacaan iyo rasaas la maqlayay ayaa ka yaabisay dad badan oo Kacbada ku cibaadaysanayay. Waxaana dadkaasi ku adkaatay inay helaan meel ay ka baxaan, balse saacad gudaheed ayaa lagu soo afjaray howlgalka. Kooxaha hubaysan ayaa la wareegay masaajidka, taasoo caqabad ku noqotay qoyska boqortooyada Sacuudiga. Raggii la wareegay masaajidka barakaysan ayaa ka tirsanaa ururka Al-Jamaal Al-Salafiyya Al-Muhtasibiya oo loo soo gaabiyo JSM. Dalkan saliidda qaniga ku ah ayaa kobcayay, gawaarida iyo qalabka korontada ayuu sidoo kale caan ku ahaa. Gobollada qaarna ragga iyo haweenka ayaa bilaabay inay isdhexgalaan. Juhaymana oo ka mid ah aasaasiyaashii JSM oo ka soo jeeda Sajir oo ku taala bartamaha dalkaasi, ayaa dadkiisa ka hor qirtay in noloshiisii hore aysan hagaagsanayn. Usaama al-Qusi oo ahaa arday diinta barta oo ka qayb galay kulamada kooxdan ayaa maqlay Juhayman oo sheegaya inuu ku lug lahaa ganacsi sharci darro ah, ayna ku jirto daroogo iibin. Si kastaba waa uu ka toobad keenay, waxa uuna noqday hogaamiye dhanka diinta ah oo ay ku daydaan xubnaha JSM, gaar ahaan da'yarta. Dadka yaqaanay sidii ardayga diinta baranayay oo kale waa ay ka dambeeyeen. Ma jiro qof arkay ninkan oo aan jeclaysan. Waxa uu ahaa qof la yaab leh. Noloshiisa oo dhan waxa uu siiyey Allah maalin iyo habeen. Si kastaba, hogaamiye dhanka diinta ah ayaa sheegay in ninkan uusan aqoon badan lahayn. Juhayman waxa uu jeclaa inuu aado meelaha miyiga ah oo ay ku nool yihiin dadka Beeduun oo uu ka soo jeedo, sababo la xiriira luqadiisa Carabiga oo daciif ahayd. Isagoo lahaa lahjada Beeduun, wuxuu ku fogaan jiray inuu u khudbeeyo dadka wax bartay isagoo ka baqayay in la ogaado. Dhanka kale, Juhayman waxa uu ka tirsanaan jiray ilaalada qaranka Sacuudiga. Tababarka militari ee uu haysto ayaana door weyn ka ciyaartay la wareegidda masaajidka. JSM ayaa waxay markii dambe isku dhaceen culamadii Sacuudiga, waxaana bilowday ugaarsi. Juhayman ayaa duurka u qaxay, halkaasoo uu ku soo cambaareyn jiray boqortooyada Sacuudiga. Wuxuu isku qanciyey in Sacuudiga uu noqday dal musuqmaasuq la degay. Halkee ayuu ku dambeeyay Juhayman? Juhayman waxaa ka dhammaaday rasaasta iyo cuntada, ayuu yiri Naasir al-Hozaami oo asxaabtiisa ka mid ahaa. Waxay isugu tageen qol yar, ciidamada ayaana bambooyin qiiq sii daynaya ku tuuray. Sababtaa darteed ayayna isku soo dhiibeen. Juhayman wuu tegay, asxaabtiisana way ka daba baxeen. Kulan ayaa dhex maray Juhayman iyo amiiradii Sacuudiga, wuxuuna u dhacayay sida tan: Amiir Sacuud al-Faysal ayaa weydiiyey sabab Juhayman. Waxa uu ku jawaabay: waa qadar. Waxaad u baahan tahay miyaa jira
ayuu ku celiyey mar kale. Waxa uu ku yidhi, waxaan rabaa biyo. Juhayman ayaa warbaahinta loo soo bandhigay. Bil kadibna 63 mucaarad ah ayaa dadka hortooda lagu dilay, kuwaas oo ku kala sugnaa 8 magaalo oo Sacuudi ku yaala. Juhayman waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee dhinta. Sacuudiga ayaa wixii intaa ka dambeeyay sii ahaa dal asal raac ah, balse dhowaan ayaa waxaa soo muuqday isbedelo.